بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركي عالم كودين كي إيماني كالسن تي في استوديو مقالة لندن. qodobadaan warkeedin ku heyno waxa kamid ah ugu yaraan 8 ruux oo afar kamid ah jaanib ahayeen ayaa ku dhintay kadib markii qarax ismiidaamin oo weerar ay daba socdeen lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Muqdisho. shirki looga hadlay waxbarashada arrimaha Soomaaliya ayaa galay maalintiisa labaad iyadoo ka qaybgalayaasha shirku ay si aad uga doodayaan arrimaha waxbarashada Soomaaliya. gudoomiyaha golaha fulinta Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Gurceel halkaas ay ku soo dhaweeyeen xubnaha Ahlusunna ee halkaas ku sugan isagoo ka hadlay kulamadii uu kula soo qaatay magaalada Muqdisho madaxda ugu sareysa dawladda. hay'adda cilmi baarista Puntland ayaa maanta magacaawday xubno ka kooban 9 ruux kuwaasi oo u xilsaaran arrimaha doorashooyinka dhawaan ka dhici doona maamulkaasi Puntland. wararka caalamkana waxaa kamid ah ugu yaraan 130 qof ayaa ku dhintay kumanaan kalena waa ay ku barakaceen kadib markii daadad ay ku dhufteen waqooyiga dalkaasi Indiya.